السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada asxaabta waxaynu ku soo wada jirnay course-keeni aynu kaga hadlaynay PowerPoint-ga kaas oo aynu ku soo aragnay qodobo fara badan. maanta asxaabta waxaynu isla arki doonaa inaynu is wada dul taagno dhammaan qodobadii aynu ka soo wada hadalnay oo aan ka dhigi doono casharkii ugu dambeeyay course-ka. haddii aanad casharaantii hore aanad daawan asxaabta qaaliga waxaad ka helaysaan channelkeena Hufana Technology ay ka helaysaan dib ugu noqda halkaana ka soo eega. haddaba asxaabta ugu horeyn waxaynu isla soo aragnay sida loo soo furto waraaq cusub ama slide cusub sida PowerPoint-ga loo soo gashto ayaynu isla soo aragnay. waxaynu ku soo sheegnay inaynu tagno file ka bacdina aynu halka ka doorano new ka bacdina ay balaanki presentation ay ka doorano. balaanki presentation waxaan ku soo sheegnay inuu waraaq cad uu yahay. kuwan kalena waxa weeyaan waa slides iyo kale oo isticmaali kartid weeyaan saas ayaynu soo sheegnay. sidoo kale waxaynu ku dari lahayn xagga shortcut-ka ama keyboard-ka markaad ka taabanaysid waxaad taabanaysaa Ctrl+N ayaa taabanaysaa ka bacdina sidaa waxa suuqa soo furaya new blanket ayaa soo furaya ka bacdi halkaas ayaa isagana ka soo gashan kartaa. waxaynu kale oo isla soo aragnay sida aynu u soo gashan karno slides hore inoogu jiray ama pre-existing slides. file ayaynu tagaynaa ka bacdina waxaan leenahay open markaad taabatid waxaad ka soo dooranaysaa computer-kaaga halkii uu ka yaalay ayaa browse ka soo dooranaysaa ka bacdi waxaad soo dooranaysaa presentation-kii halkii uu ku yaalay halkaas ayaana ka soo furanaysaa amaba adoo aan computer-kaaga ka soo dooran ayaa intaad file taabatid halkan ayuu kaaga soo qabanayaa wixii slides hore kugu jiray oo dhan halkan ayaad ka soo furanaysaa. qodobka kale aynu isla soo aragnay si aynu soo dul marno dhammaan casharrada aynu isla soo aragnay waxa weeyaan sida slides cusub loo soo furto. slideska cusub adoo home jooga ayaad halkan ka soo furanaysaa new ka bacdina waxaad dooranaysaa slideska aad u wada baahan tahay oo dhan halkan ayay kugu diyaarsan yihiin. tusaale ahaan haddaan doonayo inaan slideskan kusoo darsado kaas ayaan dooranayaa wakaa saas ayuu igu soo galay. sidoo kale asxaabta qaaliga waxaynu isla soo aragnay qaybtan insert-ga aynu dhowr qodob aynu ka soo aragnay. dhowrkaa qodob waxa weeyaan table sidaad usoo gashan lahayd halkan ayaan ka soo aragnay. waxaad tegaysaa insert ka bacdina table ayaad dooranaysaa adoo hadba ku saleynaya inta column ee aad u baahan tahay halkan ayaad kaga darsan kartaa. ka bacdi markaad nashqadeynaysid nashqadahan ku soo baxa ayaad dooran kartaa adigoo qurxinaya si fiican oo adeegsanaya. picture haddii aad doonaysid inaad soo gashatid ama sawir isagana insert ayaa laga soo geliyaa waxaana dooranaysaa qaybtan picture-ka uu ku qoran yahay ka bacdina computer-kaaga ayaad ka soo dooranaysaa. dhammaan asxaabta qaaliga waynu ka soo wada hadalnay casharadaas oo dhan. chart-ga sida loogu adeegsadana way ka soo hadalnay oo isagana qaybtan ayaad ka soo gelinaysaa. waxaan filayaa inay course-kaasi uu noqon doono course dhammaystiran oo aad ka wada faa'iidaysataan asxaabta qaaliga. qodobada kale aynu isla soo aragnay waxaa ka mid ah sida ayaad u design garaysan kartaa slideskan. slideskaaga markaad design aad tagtid halkan waxaa kaaga soo baxaya intaasoo design kala gedisan ayaa kaaga soo baxaya. marka kii aad rabtid ayaad ku saleyn kartaa adigoo dooranaya nashqada kugu fiican. tusaale ahaan haddii aan doorto slideskaygi sidaas ayuu isku bedelay waa ujeedaan dhammaan sidaas ayuu isku wada bedelay. animation-ka waxaa la dhaho animation ama transitionist waxa weeyaan waa habka uu soo baxayo slideskaagu. waxaan ku saleyn karaa inaan doorto tusaale ahaan transitionist ayaan doortay sidaas ayuu igu soo baxaya. waxaynu kaga hadalnay cashar gaar ayaynu kaga hadalnay isagana waxaad ugu noqon doontaan
channelka ayaad ugu noqon doontaan transitionska iyo sida loo adeegsado. iminka waynu sir xasuusinaynaa oo keliyata laakiin inagoo adeegsanayna dhammaan transitionska ayaynu cashar gaara aynu ku falanqaynay. waa ujeedaan sidaas ayuu soo wada baxaya. waxaynu kale oo aynu koorsadeenan kusoo aragnay slideshow, qaybta slideshowga oo ah sida aad usoo bandhigi lahayd ama sida aad usoo bandhigi lahayd presentationkaaga. tusaale ahaan markaan doorto kan waxa weeyaan from beginning, markaan doorto slideskay waa la isoo bandhigaya, waa marka aan soo jeedinayo kale. kabacdi aarowyada ayaan ka wadayaa dhammaan, hadba qayb ayaan sidaas kale ugu gudbinayaa aarowyada. marka slideshowguna waxa weeyaan waa marka aad presentationka soo jeedinaysid ayaad isagana aad adeegsanaysaa. sidoo kale qaybta viewga ayaynu isla soo baranay oo ah appearance-ga ama muuqaalka, sida ay u muuqanayaan slideskaaga marka aad diyaarsanaysid. tusaale ahaan haddaynu doorano kan, hadaynu doorano waad ujeedaan sidan ayuu inoogu soo baxaya. halkan waxaad ka aragtaan slideskii, xaggana casharaantii oo qoraal ah ayaa inooga soo baxaya. kan waa ujeedaan sidan ayuu isku barbar dhigayaa, kan kale sidan ayuu isku hoos dhigayaa. waa ujeedaan kanna sidaas ayuu soo bandhigayaa. marka asxaabta qaaliga waxaan fili doonaa inaad koorsadaas ka wada faa'iideysan doontaan oo ay noqon doonto koorso bulshadeena wax badan ay ka faa'iidaan. asxaabta waxaan iga codsan lahayn inaad channelka noo subscribe garaysaan. wixii kale ee dheeraad ah commentiga noogu reeba, wixii su-aal ah aad garan weydaan. insha allah waxaan isu soo dayi doonaa inaynu iniga soo jawaabno. channelkana asxaabtiina kale la wadaaga. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.